الحمد لله وكفى وصلاة الله وسلامه على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، أيها الأحبة في الله، الله تبارك وتعالى نعموينكي سفرها بدن إن لا تركوا بكرين وكلا واوين كلا قيمة بدن أي واحد كم إذا كوا أوجو قيمة بدن أما تأوجو قيمة بدن بأي تهي إنه إلهي ينصد شيء قرآن كريم inoo soo diray nabi maxamed sallallahu alayhi wa alihi wasallam meel badanna quraanka leenugu xusuusiyay nicmada ayada. quraanku waa nicmo weyn oo ilaahay tabaaraka wa taala khalqiga siiyay u soo dajiyay. suwarka ilaahay kaga sheekeeyay nicmooyinka uu adoomadiisa u galay suurada si khaas ah nicamka uga hadlay baa jira. suuratu an-nahl, suuratu an-ni'am baa la yiraahdaa. سورة الرحمن ويدنا نعمك إلهي حسوسين تودا أدومدا كوعل علينيس وحالقوا بالله بين نعموين مركي لا ترين أمل الشيء نعمدا سالقوا بالله لأن يدا أوين. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. وحيك إلهي سود تشيبا نعموين كلوجه الرئيسي. سورة الرحمن الله يقول الرحمن علم القرآن، علم القرآن أبو رستين حتى وحلقه هرمري قرآن كبريديس. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. إنسان كأبو ريديس إيه إن لبرو إنو عد يستوحوا الربو لبضب وحا كوين إن إلهي قرآن كبري علم القرآن. قرآن كان يبقى نعمة إيه قال دوين هذا محا إنك آدن الضوء محا كجا آدن حل إنه جبه هي وحل إنه جبه هي أولاً إن الرومينو إنه حق يهي دمانتي إنه يهي هذا الكإله تبارك وتعالى إنه حق السودجي حقنا للسودجي إن ورركيسي أخبارتي سنة أي رنتهي أحكامتي سنة أي عدالتهي إن الرمينه وحق أو كونك دولك كوركيسا منهج يا كتاب يا قانون حق أو صح أو دولك كوركيسيا لأن قرآن كهين مجرو وحي كالصهري وباطل وحي كالصهري وباطل. هذا صاء الرميننا مسلم بمتيه. هذا الرميسان ده قرآن كنا واحد بايبل كنا واحد مسلمته. هذا رميسانته القرآن كنا واحد قوانين تبني آدم كدجستين واحد مسلمته. لأنه وحوي عد كلو عريريان كرت كتاب كان حقني مدي سمجرته اسكتنا قانون بني آدم دجستين كتبتي كهر ريسي هرتيسو دكتي مركو إساقو يميد وبدلي ماشو كساري والرميي لكن إسقى إسكاله وحي كذب من الزمن كإلى قيامته كإيمان إسقى إسكاله. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه كتبتي هو الرميين إن حقه يد شيء ومهيمنا عليه لأنك كلنا وهيمنين يا وكسد علينا يا وقت كودي الزمن كودي والله صورنا في الزمن كان إسقى إسكاله. haddii kutubtii hore tawreed iyo injiil iyo wixii ka joogaba la yiri maya kitaabkana soconaya isaga bedelay la yiri qawaaniin bini aadam dejistay ka waran marka xagee yaalaan. sidaas daradeed waa inaad rumayso inuu keligii xaq yahay wixii ka soo harayna baatil yahay. al-iimaanu bihi wa inaad rumayso kitaabkan ina la yaalay inuu yahay sidii ilaahay u soo dejiyay hal xaraf aan lagu darin hal xarafna uusan ka dhimanayn. haddaad rumaysadeen quraanka inuu wax ka maqan yahay iyadana muslimatihiin sida raafidada iyo shiicada qaarkood rumaysay. marka inaan rumayno oon si dhab u rumayno waajibka labaad ee inaga aadan quraanka kariimka wuxuu yahay bacda al-iimaan bihi inaan u jeedsanno barashadiisa. لأن إلهي وحو أسود الشيء
nebi maxamedna u soo diray sala allahu calayhi waaalihi wasalam in kitaabkan la barto nebi maxamedna inuu macallinkii dadka barayay noqdo sala allahu calayhi waaalihi wasalam wayucallimuhum alkitaaba waalxikma dadku wuxuu barayaa kitaabka ilaahay litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim dadka wixii loo soo dejiyey inaad u caddayso waa caddeeye waa sharxe waa fasire waa bare nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayh barihii makhluuqa waay marka addoommaduna way baranayaan isaguna wuu barayaa saas daraaddeed muhimmaddii ugu weyneed ee nebigeennu u istaagay waxay ahayd markay dadku diinta qaateen inuu dadka baridda diinta u fadhiisto oo hadduu safar yahay iyo hadduu socoto yahay iyo hadduu joogaba inay dadka diinta u baro oo qur-aanka baro oo xikmadda iyo fahamka iyo sunnada baro salawaatu rabbi wasalaamu calayh sidaas daraaddeed barashadu waa waajib qadarka waajibka ah ee ruux kasta waajib ku noqonaya culimmadu ha ka hadleen inteebaa ruux kasta laga rabaa laakiin waxa weeye fi ljumla qur-aanka barashadiisu waa waajib barashada kadib maxaa laga wadaa barashada laba macnaa laga wadaa kowayo horta qur-aanka akhrintiisa inaad baratood saxdo ama xifdi ka akhriyo kor ka akhri ama kitaab ka akhri laakiin waa inaad carabka ku toosiso akhrinta qur-aanka inaadan qur-aanka laxni iyo jejebin ku akhriyin leanna qur-aankani waa talqiin waa laqinid jibriil baa nebi maxamed u laqinay malakuljibriil calayhi assalaam baa nebi maxamed u meeriyey nebiguna waa ka daba meeriyey fi suurati taaha iyo suuratu alqiyaama intaba sida ilaahay ku sheegay nebi maxamed sal alla alay slam jibriil buu ka daba akhrinayey weliba ha degdegin baa layidhi walaa tacjal bilqur'aan ha degdegin sug macallinkaagu markuu kuu akhriyo ka daba akhri nebiguna sal alla alay wasalam wuxuu u akhriyey oo u meeriyey saxaabada way ka daba meeriyeen sidaasay ummaddu u kala dhaxashay qur-aanka marka waa inaad macallin kuu meeriyo kuu saxa leedahay ma jiro wax la yidhahdaa anaa iska qasbanayo musxafka intaan soo qabsado saan doo yeelay ma aha ilaa maalinkuu soo degay ilaa taariikhdaa dheer qur-aanka waa la kala qaadanayay carabkaa lagu kala qaadanayay macallinkaas saxayay ardaguna wuu saxanayay marka qur-aanka lafdigiisa iyo akhrintiisa waa inaad saxato waxaa kaloo soo gelaya barashada qur-aanka inaad barato qur-aanka macnihiisa fasirkiisa inaad barato muxuu qur-aanku ka hadlayaa muxuu jidaynayaa muxuu reebayaa muxuu kaala hadlayaa ilaa aduu kula hadlayaa adigu kula hadlayaa aduu wax kuu jidaynaya aduu ku amraya aduu kaa reebaya haddaadan fahmin seebaad qur-aankii u wadani marka sidaas daraaddeed macnaha qur-aanka oo la aado oo loo qasdo waa qaybta ugu muhiimsan barashada waana midda ilaahay tabaaraka wa tacaala marka laga hadlayo qur-aanka barashadiisa marar badan fahamkeenna waxaa u degdegaya oo aynu markaaba u qaadanaynaa qur-aanka barashadiisa iyo bariddiisa in laga wado un akhrinta laa nusuusta ku soo aroortay qur-aanka bariddiisa iyo barashadiisa labadaba way soo gelaysaa lafdigana in la barto macnahana in la barto sidaas daraaddeed qur-aanka barta oo u jeedsada oo kitaabka ilaahay yaan lagaa xigsanin oo ha dayicin ha ka jeedsanin adaa ilaahay kuu soo barwaaqada iyo nicmada ilaahay kuugu talagalay ha ka jeedsanin ha dayicin qur-aanka in la barto macnihiisa iyo lafdigiisa iyo akhrintiisa waa waajibka labaad waay waajibka saddexaad ee ina saarani wuxuu yahay qur-aanka akhrintiisa inaan ku cibaadaysanno oo ruuxu uu maalinkii qur-aanka wuxuun ka akhriyo ha yaraato hal badnaato hal juz maalinkii qaado hal xisbi maalinkii qaado maalinkii hal maqra akhri wardi qur-aan yeelo xataa haddaadan qur-aan badan aqoonin intaa taqaano ee ku celceli intaa wardi ka dhigo qur-aanka xidhiidh la yeelo la noolow qur-aanka kariimka ah qur-aanka marka akhrintiisa iyo in lagu cibaadaysta akhrintiisa ayadana waa qodobka kale waana midda ilaahay waxyaalaha loogu dhowaado kuwa ugu waaweyn bay ka mid tahay leanna hal xaraf ood akhridaayay
ugu yaraan waa 10 ajir waay alif laam miim markaad akhrido waa 30 ajir waay aliftu waa 10 laamtu waa 10 miimkuna waa 10 marka akhrintiisa inaan ku cibaadaysano waa waajibka saddexaad waajibka afraadi waxa weeye inaan quraanka ku amal fallo oo markaynu fahanna kadib uu dhaqan inoo noqdo laana fahamka iyo ku dhaqanka labadaasi ma kala maarmaan kitaabun anzalnahu ilayka mubaarakun liyadabbaru aayaatihi macnihiisa fahan oo dhuux waliyatadhakkara ulul albaabi kadibna ku dhaqan haddii caqli fayow aad leedahay dhaqanka dhigo kitaabkani wuxuu u soo degay inuu ina maamulo waxaa loo soo dejiyey inaynu ku dhaqanno waxaa loo soo dejiyey inuu ina xukumo waxaa loo soo dejiyey inuu dastuur iyo nidaam iyo qaanuun inoo noqdo waxaa loo soo dejiyey khusuumaadkeenna inuu kala saaro hadday dhaqaale ku saabsan tahay hadday qoys ku saabsan tahay hadday nolosha qaybaheeda kale ku saabsan tahay hadday ciidan ku saabsan tahay hadday calaaqaad dawlado lala yeesho ku saabsan tahay hadday dagaal ku saabsan tahay hadday heshiis iyo nabadgelyo ku saabsan tahay kitaabkani inuu ina xukumo ina kala saaro ayuu ilaahay u soo dejiyey in loo noqdo oo nolosha isagu u taliyo waliba wax kale laguma dari karo wax kalena laguma qasi karo kitaabka ilaahay iyo ahkaamtiisa iyo qawaaniin kale to meelo kale laga soo ergista ama xeerar la dejiyay iyo quraankii ahkaamtiisii inta la isku daro ma heshiin karaan mana wada socon karaan laana waxa weeye laba istiidaya naqiidaan waay ilaahay sidoo quraanka kariimka ku sheegay quraankani shay kale meel lama gali karo nidaam kalena meel lama gali karo keligii qaado ama banaanka ka mar keligii ka dhiga nidaam ama banaanka ka mar laakiin qaarna waa qaadanaya wax kalena waa ku qasaya qaarna waa beeninaya la ilaahay waa diiday tabaaraka wa taala binas alquran abatu'minuna biba'd alkitabi wa takfuruna biba'd war kitabkan qaarna ma qaadanaysan qaarna ma diidaysan udkhulu fi silmi kaafa adoo wada idig waxba aan la hadhin gal islaamnimada gal iswada dhiib dhaqaalahaaga dhiib naftaada dhiib qoyskaaga dhiib dawladdaada dhiib xidhiidhka dhiib isdhiib udkhulu fi silmi kaafa wada gal laakiin qaarna xagga dastuurka faransiiska iyo maraykanka iyo nidaamyada iyo qawaaniinta la soo dejiyay baan qaar ka qaadanaya qaar xeer jajabkii odayaashan ka qaadanaya qaarna kitaabka ilaahay baan ka qaadanaya waa hadaan maslaxa u arko la waaba taata la diidan yahay lagaba hadlayo sidaas daraadeed kitaabkani ilaahay soo dejiyay tabaaraka wa taala waajibka inaga aadani wax weey inaynu ku amal fallo si buuxda oo isaga keligii uu inoo noqdo dhaqanka nolosheena maamulaya qaybaheeda kala gedisa inta waxa dheer kitaabkan markaynu rumaynayno markaynu baranayno markaynu akhrinayno markaynu ku amal falayno markaynu barayno dadka ee aan ugu yeedhayno kulli niyadeena qasadkeenu waa inuu yahay ilaahay raali gelintiisa dan kale waa inay sameesho ku jirin waa inaadan adduunyo ku doonaynin waa inaadan magac ku doonaynin waa inaadan kursi iyo jago ku doonaynin waa inaadan waxoogaa maala ku doonaynin la kitaabku waa ka weeye quraanku waa ka weeye quraanku wax adduunyo lagu raadsado waa ka weeye sidaas daraadeed baa nabigeenu wuxuu sallallahu alayhi wasallam quraanka akhriya ilaahayna ku raadiya wajigiisa intaysan imaanin dad sida qorigoo kale leebka qorigiisoo kale u toosinaya quraanka laakiin ku degdegsanaya ee aan waxba ku dibdhiganaynin quraanka akhrintiisay ku luuqaynayaan waa qurxinayaan way toosinayaan laakiin adduunyay ku doonayaan xoolay ku rabaan kuwaasi intaynan imaanin buu nabigu sallallahu alayhi wasallam quraanka akhriya ilaahay wajigiisana ku raadiya xadiis kale nabigeenu wuxuu leeyahay sallallahu alayhi wasallam quraanka waxa ku cunina waxna ha ku badsanina
waxaad cunto qur-aanka ha ku raadsanin akhrintiisa barashadiisa laanna waa ka weyn yahay adduunyo liidata inaad qur-aankii uga dhigato yacni wasiilo uga dhigato maya ilaahay raaligelintiisa jahliga inaad ka baxdo inaad ku cibaadaysato inaad cadaab kaga badbaado inaad janno ku gasho in rabbigaa raalli kaa noqdo niyada hagaaji qur-aanka meel kale ha la aadin adduunyaha ku raadsanin akhrintiisa barashadiisa bariddiisa niyada hagaaji markaasaa waxaad noqonaysaa dadka kuwa u khayr badan xadiiskii nabiga sal alla alay wasallam fi saxiix albukhaari khayrukum man tacallama alqur'aana wacallama waxaa idinku khayr badan dadka qur-aanka baranaya qalinqoyanta ah iyo dadka qur-aanka baraya macallimiinta ah ama ha baro qur-aanka lafdigiisii ama macnihiisa ha baro kuwaasaa idinku khayr badan goormay ugu khayr badan yihiin markii qasadkoodu yahay ilaahay dartii markii qasadku ka hallaabo macallinka iyo ardayga qur-aanka baranayo niyaddu meel kala aado khalqiga ilaahay kuwa ugu shar badan bay noqonayaan bal waxay gelayaan sida xadiidka fi saxiix muslim ku sugan maalinta qiyaamada saddexda ruuxee ugu horreeya naarta lagu hurin doono ayay ka mid noqon doonaan waa cibaado weyn laakiin niyadu markay qalloocato waxay isu beddelaysaa wax naar lagu galo fii saxiixi muslim buu nabigu ku sheegay sala allahu calayhi waalihi wasalam sidaas daraaddeed qur-aankan la tacaamulkiisa niyada ha la hagaaji waxaa ugu dambeeya qur-aankani wuxuu u baahan yahay in loo hiiliyo wuxuu u baahan yahay in loo shaqeeyo wuxuu u baahan yahay in loo adeego wuxuu u baahan yahay in la faafiyo wuxuu u baahan yahay in xoolo lagu bixiyo wuxuu u baahan yahay goobaha lagu baranayo in la hagaajiyo wuxuu u baahan yahay khalaa'iqda kale ummadaha kaleeto in loogu yeedho wuxuu u baahan yahay ummaddii muslimka ahayd oo in badanoo ka mida qur-aankii aysan aqoonin in dadaal la geliyo sidii qur-aanku u faafi lahaa macnihiisa iyo lafdigiisaba dadaalkaasina waa mas-uuliyad ummadda saaran waaye shacab keliya maaha waajibka ugu horeeya ee nin bulsho muslima madax u ah ku waajibaya waa inuu qur-aanka kariimka u heliyo waay qur-aanka inuu ka shaqeeyo siduu u faafi lahaa awooddiisa inuu geliyo waay ummadda dhaqaalaheeda in la geliyo waay ummadda tujaarteeda iyo ganacsatadeeda iyo culimadeeda iyo waxgaradkeeda iyo odayaasheeda waa waajib ina saaran inaynu kitaabka ilaahay garab istaagno markaynu raacno ku dhaqanno kadib haddana waxaa ina sugaya inaynu faafinno garab istaagno waxaa ina sugaya wixii khilaafsan oo kitaabka ka soo horjeeda inaan la dagaalanno oo nidhaano maya isagaa nugu filan isagaa xeera isagaa dhaqana isagaanu rumaysannahay wax kale maya intaa waxaa aynu ku daraynaa oon ku gebagabaynaynaa qur-aankani taariikhdaa dheer ee muslimiintu ay lahaayeen waa ku barakoobeen innaguna barako inooga sokaysa ma jirto qur-aankoo loo soo noqdo mas'aladaa meel ku xariiqa taariikhdaa dheer ee muslimiintu lugo-een ilaa maantana lugo-san yihiin xaaladahoodu ka sii darayaan maalinba maalinta ka dambaysa musiibadu meeshay inaga gaadhay wax weeyaan kitaabkii ilaahay oo laga hijrooday kitaabkii ilaahay oo laga tegay kitaabkii ilaahay barasho ku dhaqan dastuur kitaabkii ilaahay oo inta noloshii laga riixay la yidhi masaajidda ha yaallo waa xidhiidh addoonkiiyo ilaahaysa u dhaxeeya laakiin dowlad shaqo kuma leh maxkamado shaqad kuma leh qawaaniinta shaqo kuma leh adeerow haddaad adigu rumaynayso raacaysa aday kuu taallaa halkaa markay gaadhay oo nidaamka calmaaniyada la qaatay maxaa ilaahay laga sugi tabaaraka wa tacaala waa lugo oo rafaad oo maalinba musiibo gal oo dibdhac oo ha lagu qabsado oo aafoo dhan gal waa laakiin ilaahay hadda waxaynu garan la'anahay meesha laynaga gaadhay soomaalidu waxay tidhaahdaa doqoni qufacday meesha laga gaadhayse ma garanayso jabnay oo burburnay oo rafaadnay oo kadadannay laakiin ilaa iyo hadda maynan haleelin meesha laynaga gaadhay si aynu u saxno qur-aankani maalinta qiyaamada waa xujo qur-aankani maalinta qiyaamada wuu shafeeci qur-aankani maalinta qiyaamada wuu kuu hadli qur-aankani maalinta qiyaamada wuu kuu doodi waase goorma markaad xaqiisa siiso waay qur-aanka xaqiisa aan siino nolosheennanu way iska gaaban tahay aan kitaabka ilaahay la saaxiibnoon u shaqaynoon ka shaqayno
صلوا وسلموا على خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ردنا إليك ردا جميلا ووفقنا لما تحب وترضى. وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.